السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. sidaan ogsoonnahay rag iyo dumarba waxay raadiyaan qof aad u wanaagsan marka ay doonayaan inay qof xiriir la sameeyaan. sidaas daraaddeed maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa xikmad yar oo ku saabsan dooqa ragga iyo dumarka. magacaygu waa cabdirashiid iblaabe. intaan u gudagelin ka hor muuqaalka fadlan dadku cusub tahay subscribe saar. raggu waxay jecel yihiin inay dumarka ka helaan saddexdan dabeecadood: inaan dhowrsan misana asturan, inaan afgaaban weliba xishood badan, inaan leh dhaqan iyo dabeecad wanaagsan. dumarku waxay ka siman yihiin ragga inay ka helaan saddexdan dabeecadood: nin naxariis badan misana uu taxadiro sida inantiisa oo kale, nin dulqaad badan oo haddii la isqabto noqda kii u sabra xaaskiisa, nin xushmad badan oo xaaskiisa u qadariyo sida hooyadii oo kale. haddaba inantii nasiib u yeelatay inuu allah subxaanahu watacaala ugu deeqay dabeecad iyo dhaqan wanaagsan, waxaa tahay gabar uu nin kasta ku fakero inuu helo. sida aageed isku day inaad ilaashato oo aad ku dheganaato dhaqankaaga iyo dabeecadahaada wanaagsan, waayo adiga ah qofka keliya ee cid kasta baadigoobayso inay xiriir la samayso. sidoo kale ragga uu allah subxaanahu watacaala ugu deeqay dhaqan iyo dabeecad wanaagsan, waxaad ogaataan dumarku waxay ku hamiyeen inay helaan nin adigoo kale ah. isku day inaad xajisto dabeecadahaada iyo dhaqankaaga wanaagsan. waxaan allah subxaanahu watacaala weydiisanaynaa rag iyo dumarba inuu siiyo dabeecad iyo dhaqan wanaagsan, uuna u fududeeyo guurka intiiba guurdoon ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axbaabii. intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waa anigoo cabdirashiid iblaabe oo idin leh sidaa iyo ammaano allah.